وشاعنتا يا والمرينتا جولستياشي كقيب قاتي ترتن شيكو أوكي قيمانتا يا صارست ليس جولستياشي سيد الله مري شركة كستا أو ترتن كقيب قاتي وحلو قيمين يهب قرالك كو حكمة كدم بيسا فرشحنك تراب وناجا يسامنتا يا خريستياشي كويا لنكرتي قيمانتا يا قامنت جولستياشي وحا قان كذا لها guddi ka madax banaan xarunta ifiye oo loo xil saaray howshaas kana koobnaa xeeladayaal suugaanta af Soomaaliga waxayna soo qiimeen kadib go'aamiyeen guuleystayaasha kaalmaha koowaad labaad saddexaad iyagoo aan ka warqabin cid qorta sheekada dukumentiyada u dhiibayna waxaan ka reebnay magacyada tartamayaasha guuleystayaasha ayaa haduu aad macaaw halkaan aan ku shaacin doono ayaa waxa la guddoonsiin doonaa guuleystaha koowaad astaanta bilada koowaad oo qoraaga magaciisa ku xirdan yahay iyo abaalmarin lacageed dhan $1,000 oo cash ah labo guuleystaha labaad waxa la guddoonsiin doonaa astaanta bilada labaad oo qoraaga magaciisa ku xirdan yahay iyo abaalmarin lacageed dhan $500 guuleystaha saddexaad waxa la guddoonsiin doonaa astaanta bilada saddexaad oo qoraaga magaciisa ku xirdan yahay iyo abaalmarin lacageed dhan $250 dhiirigelin iyo abaalmarintaasi waxay u noqon doontaa ka soo qaybgalayaashii tartan sheeko gaar ahaan guuleystayaasha oo aan filayno in dhalinyaro badan sanadada soo socota oo joogto ay noqon doonto tartan sheeko inay ka soo qayb galaan hadda aad aan faraxsanahay in caawa halkan ururka ifiye ama xarunta ifiye ay noogu qabatay xaflad aad qiimo u leh taasoo lagu tartansiinayay sheekooyinka iyo ma arkaysa hal abuurka dhaqanka iyo Soomaalida la xiriirta taasina waa arrin runtii aad loogu farxo sida aad la socotaan af Soomaaliga waa wax aad u gun weyn af Soomaaliga waa qani waagi hore waxa la dhihi jiray af Soomaaliga waa ma laga gayoobaya hadii la yiraahdo hala soo koobo haddaan tusaale idin siiyo afka Soomaalida ee maldahan kaliya waa meeqa afka Soomaalida maldahan yaa wax ka sheegi kara afka Soomaalida maldahan waa 8 af Soomaaliga maldahan waa 8 marka mid kamid ah sheegi karo waxa kamid ah sarbeeb iyo siiwad markaad u sameeysid khaanada aad u sameeysid مثلا markaad tiraahdo afka Soomaaliga ee maldahan imisa u kala baxaa 8 u kala baxaa marka midaan sheego waa mid kamid ah 7 kala jirto ma garatay marka af Soomaaliga waa wax gun dheer oo luqadaha kale oo sida Carabiga kale aan la leenahay xiriirka ayaa keenana uu gun dheer yahay dhalinyarada meeshan joogto waxa laga rabaa in ay barbaariyaan oo aqligooda horta uu siiyo in ay koriyaan ifiye inaad dareentaan annaga dhan dareeno xarun aan leenahay horta inay tahay maalin kasta waxaa la bilaabaa hal abuur iyo shaqo wanaagsan dhalinyaradu ay bilaabaan ama dad kale ay bilaabaan sanad intaan la gaarin way baaba'aan sababta kalifaysa ma ahan dadkii bilaabay inay dad xunahayeen maskaxdoodii ka soo maaxatay dareenkoodii iyo dadaalkoodiina way muujiyeen laakiin dhaqankeena culture-keena kuma jiro waxa la yiraahdo joogtaynta sababtu maxay tahay maxaa loo joogtayn karin qofka shaqada bilaabay waa in ay dadka kale u adeegaya u arkaan waxay wada leeyihiin haddii ifiye aanan caawin waa inaan dareenaa ifiye maxay tahay xagee degan tahay ifiye kirada yaa ka bixiya ifiye billboardkan yaa u daabacay ifiye xafladan caawa yaa bixinaya yaa dhiibaya lacagta abaalmarinta yaa waxaan dhan soo daabacay haddii caawa ay sameeyeen ama munaasabadan sheekada soo socota waa haddii ifiye ay sii wadaan sheekada soo socota ifiye intaan inay kasii qurxoonaato in lagala shaqeeyo maahan jawaabtu waa haa marka intaan waxaa laga rabaa ifiye inay caawiyaan qof kasta inuu intoo kale u sheego
marka ifiya waxay noqonaysaa xarun joogto ah oo adinka oo waaweyn oo ubadkiina ay ka faa'iidi doonaan sida xarumaha lamidka ah ee adduunyada ka samaysan ay u yihiin xarun runtii aad iyo aad iyo aad u ballaaran. Well, yeah.